السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالي ميل كستا joogtiin soo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka oo walaashin shukri aadan boole asxaabta qiimaha badan ee dhinaca nagala socota hawada soo dhawaada indhaha inagoo mahadsan inta usii guudo gadin maanta topigeena waxay naga codsanayaa inaad subscribe sameysiin like gareysiin share gareysiin channelkiina waaye iniga wax niigu soo dahayay inagoo mahadsan codsi ayaga tahay وانا العقل الآن أصحاب تقاليقة ما أنت العقل قام قاضنا just like سمي شجري كان كارنو كوري إني قوم حسن ما أنت توبيكينا وحواي حربينا كحلو صدقة ده important كليد هاي أما dad muslimiin ayaan nahay soo marka videogan rabayna in la wadaago mar hore ayaan rabayna in la wadaago laakiin waa iska mashquulsanaa videogan wiil yar oo maskiin ah waaye oo ilmahan dan yarta ah oo iibinay taaysa u kasaysiin af Soomaaliga oo nimanka ay xirtaan ninka ay naagtan oo isqabaan soo cunugiriska qof maskiin ah waayo shaqeysanayo wadamaha carabta ay ka dhacday marka wuxuu tusayaa ninka marka dadka badanaa oo wax haysta marka wax yar leeyihiin jeebkooda iska yar qoyniya kibir badan ayaa ku jira marka waa iska wada ogyahay qof kasta ayaa og marka taayga cunug inta soo qabto dhulka uga tuuray hadii xitaa ku dhihi lahaa ma rabo si fiican maxaa ka baay laakiin cunugiriska taayga dhulka uga tuuray una si xun uu aflagaaday meesha ka dhaqaaqay ku dhahay cunug yar miskiinka ha iskooga dhaqaaqay jidka ayuu goynayaa u jeedin ninkii kibirsanaa iyo naagtiisa naagta xubnadan ku xawiil yar soo la hadlaysa ku dhahaysa ilaahay ma ka baqatid qofka ma la xumeeyo soo naga daa waxa soo dhahayaa meesha aada cuntada marka meesha hortooda cunugiriska soo fadhiisanaya soo marka asxaabta qaaliga halkaas waxa ka baranaynaa waxyaalo badan ayaan ka baranaynaa ninkii even xitaa cunugii second ma ka soo wareegin oo lagu soo boodaya wax cunay ay ku marganayo wuxuu heli waayay leerta oxygenka waa hawadan aan neefsanayno ayaa ka dhigtay soo marka ninkii dhimasho ayuu dhawaaday wax la yaab leh ayaa noloshiisa isla markii daqiiqado second ka bacdiba 20 second mise 50 second ba ninkii isbedel cunugii raa ilaa halkaas ayuu fadhiyay uu arkay isla markii soo gooyay soo cararay wakaas u jeedin wuxuu isku dayayaa kan waa la sameeyaa dadka jaamacadaha dhigana dhan waa la baraa qofka marka wax ku dhacaan inaad sameyn kartid la isku dayaa soo marka cunugii wuxuu sameynaya in ninkii caloosha ayaa la qabtaa qofka markaas xitaa ma qaadi kara isaga nin waxa weyn wiilkana wiil yar waa isku dayaa inuu caawiyo soo marka aad ay u xun tahay aniga weligan ma nagu dhicin laakiin waxa iska imagine garay adoo hawadii dhan heli karin waa dhimasho kale moogta hawadeeda laga xiro soo cunugu maanta dhan u caawinaya ninka sida ogid uu la hadlay sida xumeed cunugiriska uu aflagaadeeyay oo yasay kibirka haye ninkii waa kaas cunug yara ilaahay baday adduunkan waxa lagu tusayaa you don't know qofka bari ilaahay hoostiisa goodkantid soo qof kasta si xishmad leh oo fiican oo dhaqan fiican ula dhaqan haday dadka masaakiinta xitaa wax haysanin si fiican ilaahay ku sahlo ka xumahay laakiin even ilaahay ay quraan ku hadlo dhaha ha ka sii jeesin dadka wax weydiisan lacala daahayn marka sila bil aadana tahay waxa laga rabaa si fiican dhaqan fiican inaad tusid ilaa waxaan ilaahay ba bixiya marka asxaabta qaaliga marka waxbaan ku baranaynaa hadda dad muslimiin nahay Soomaali sadaqada ku fiicantay ma sha Allah tabarakallah laakiin hadana iska bil aadana nahay marka jeebka qoyn yahay qof miskiinka hooseeya aragtid waxba ku taagtaagsan ma ogaan kartid bali meesha qofkaas gaari doono ama adigana aad ku soo dhici kartid because ilbiriqsi gudaheeda ayaa nolosha dadka Ilaahay kala bedela hada u jeedin ninkan sakamad gudahiisa ayuu noloshiisa cunugaas u baahnaysay markii hore wiilkii yara ayaa u baahnaa soo marka ninkii isla markii u jeedin cunugii qof kale inta la doonin cunugii yariska ayaa caawiyo soo cararay soo waa kan hada cunugii ayuu mahadcelinaya oo alaabtiisu soo qaada markii dhulka uga daadiyay taayaashii wixii yara uu gadanayay uu soo qaadaya uu mahadcelinaya wuxuu ku dhahayaa iska raali noqo waa u jeedin waa wallahi qeyro waaye qof naxariis leedahay oo dadka u naxariisatid waa shay aad u muhiim ah dad muslimiin nahay oo dadka cunugii yar soo fadhiisana la cuntay u dhahaaya uu raali gelina cunuga isku inaya baroor oo qabsanaya soo marka waxaan rabaa inaan ka barano wax aan dad noqono Ilaahay ka baqada oo dad aan noqono humble ah oo dhulka ku socdo oo cirku isku dayin dadka u naxariista dadka masaakiinta ah fiican akhlaaq fiican inaan lahaano akhlaaqdeena marka hadlaysid ka fiirsatid aska hadlina wax ka soo baxay wax kale ogeyn waxaan rajaynayaa wallahi inay wax ka faa'iideen maadaama dad muslimiin aan nahay inaan dadka u naxariisano qof kasta naga hooseeyo aan si xishmad leh meeshiisa isgaarsiino hadaa wax ka faa'iideen daawadayaal
sheegareeya inagoo mahadsan. Wassalaamu calaykum.